بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبكي محمد إبراهيم سيدو برعو برصابك وقصوا نقضي مقعينا ويكبدلي حرير وين با كان حيو وهادي بي أرنتي سو waxay maraysaa sidii labadii qole ee isqabtay meel gubadle loo oran jiray isku qabteen mid baa wuxuu arkay gudidii oo aan dacwada ku badinayn hadalka dhaabad uga dhigeen gubadle markaasuu ku xogaantay war gudiyay ilmaade rayaalo labadii halba mid gubadle hal noqdo yani wixii la isku hayay marba la soo qaaday buu leeyahay rajaalada aad u haysay warda maadsan iyo iska kaftan runtii iska afurkii baa taagan hadal badan u biximaayo ujeedada ugu weyn waxay kulankan bogaadin iyo mahadnaq bay ahayd galabta inaan wada afuro kalana boqollo isna sagootino isuna sii ducayno waxaan ugu horeyn jeclaa inaan halkan ka bogaadiyo una mahadnaqno dhammaan ardada iyo macallimiinta ka soo qayb galay kulankan aqoon isweydaarsiga iyo dhinacna cilmi baarista ka ah gaar ahaan wafdigii ardada iyo macallimiinta ka timi Nugaal University jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood jaamacadda Burco jaamacadda Golis jaamacadda Hargeysa jaamacadda Camuudi jaamacadda Beder lixda jaamacadood macallimiintii iyo ardadii ka timi dhammaantiiba waa idinka mahadnaqaynaa waxaan runtii ku bogaadinaynaa aqoontii iyo hal-abuurkii iyo doodihii hufnaa ee labadii mawduuca waaweynaa muddadii aad nala joogteen aa ka samayseen ee ahaa muxuu ahaayey kasoo kabashada abaaraha iyo kahortagga abaaraha waxyaalaha la xidhiidha maxaa sidee baynu uga soo kaban karraa abaaraha maxaynu qaban karraa maxaa habboon maanta in la qabto mawduuca kalena ahaa muxuu ahaayey nolosheenoo ku tiirsantay lacag qalaad iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland sidee baynu uga hortagi karaa sidee baynu muxuu ahaayey dhaqaalaheena u adkeyn karaa aad iyo aad baa runtii aanu idinku bogaadinaynaa waxaan idin ballan qaadaynaa waxa aad maskaxda ka tuujiseen inaanay noqon hal bacaad lagu lisay iyo xibrun cala alwaraq warqado wax lagu qoray ay noqdeen wax laga faa'iideystay ujeedadaanu idinku yeedhnay ma ahayn madadaalo iyo maaweelo iyo isbarasho keliya isbarashadu waa ka qayb laakiin iyo isdhexgalka xataa jaamacadahan inaad isbarataan laakiin waxaa ka weynaa in aqoon laydinka helo qarankan sidii maalintii hore aan warbixinta ku bixiyay duruufo badan baa hareerayey oo xoog badan markaa oo aanu habeen iyo maalin xalino crisis management adduun fara badan baanu ku bixinaa xalinta dhibaatooyinka qaranka soo food saaraya oo aynu ku bixin kari lahayn hal abuur iyo cilmi baadhis marka inaad nala wadaagtaan oo aan idinkala ogaano aqoonta jaamacadaha iyo talooyinkooda ayaan nuxurkiisu ahaa waa barbadu fiican waa ka sii kordhin doonaa xukuumadda cusub timaadana waanu ku dhiirigelin doonaa waana kula talin doonaa in tubtaa la kordhiyo iyo sunnaha la joogteeyo gaar ahaan guddiga ka soo kabashada abaaraha madaxweyne u magacaabay oo guddoomiye u ahay waxaanu ka faa'iideysan doonaa researchkan iyo aqoontan aad keenteen waa dersi doonaa wixii aanu aragno muxuu ahaayey wixii aanu kaga faa'iideyn karnana waan kaga faa'iideynayna haddii alla ka dhawo waa idiin ballan qaadaynaa wasiir ku-xigeenka maaliyadduna waa kii idiin ballan qaaday in wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexeena ay arrinta dhinaca muxuu ahaayey qiimo dhaca shilinka Soomaaliland iyo sicir bararka iyo ay tixgelin doonaan waxaan kaloo iyadana u mahadnaqayaa agaasimaha guud ee tacliinta sare Yuusuf oo isaguna runtii mashruucan si wanaagsan u xiriiriyay waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenka maaliyadda Axmed Xaashi Cabdi oo hawsha isku dubaridkeeda iyo odayeynteedaba lahaa aad iyo aad baan isagana ugu bogaadinayaa doorka fiican u qaatay waxaan runtii bogaadinaynaa jaamacadaha dalka oo door weyn horumarka dalka ku leh oo door weyn aqoonta ku leh
waxaana ka mid tahay qaranku meelaha uu macaashay ama kororsaday bay ka mid tahay qaran ahaan waynu dhisannay maalintii hore hadalkayga ku jirtay wax badan baa inoo qabsoomay muddadii 22 sano ee Somaliland ay ahayd qaranka madax bannaan meelaha qaarkana waa inagii ka hadlaynay ee dhaliilaynay waayo ma qarsan karra ceebteena waxa saxa ummaduhu waxa ka jira inay ogaadaan waxa ka xun iyo waxa u wanaagsan dhaqamadeena qaar hoos u dhacay baa jiray waynagii tilmaaminay aqoonteenu way korodhay 22 jaamacadood baynu leenahay oo kala muxuu soo kala horeeyay oo maanta geyga Soomaali bulshada afka Soomaaliga ku hadasha aynu hormood u nahay jaamacadeenu waa jaamacad dhisan waxaynu u baahanay wax inaynu sii kordhino inay gaar ahaan dhinacyada cilmi baarista inaynu xoog saaro jaamacadu dhaqaale ku bixiyaan qorshe u sameeyaan xukuumaddu ku tala gasho budgetka wax u geliso arrintaas waa laga maarmaan jaamacaduhu mas'uuliyadda ay xilalka saarani kaliya ma ha wax baris waxa ka mid ah cilmi baaris inay sameeyaan adduunka cilmi baarisaha ugu badan jaamacadaha sameeya waxa ka mid ah service waa sidii imika uu professor Mubarak sheegay kani waxa weeyaan xilalka iyo mas'uuliyadaha jaamacadaha saaran ee aqoon ay sameyn karaan dawladda ku biirin karaan private sector-ka ku biirin karaan arrintaas waa laga maarmaan jaamacadeena wax weyn baa u qabsoomay in halka laga hormariyaa loo baahan yahay oo aan halka ku joogin inay halka aanay ku joogin baynu u baahannahay ee ay hore u sii socdaan oo qorshe dheer muxuu ahaayay aynu u fakarro marka loo eego xilliyadii aynu soo maray dhowriye 80nadii dhowriye 70nadii dhowriye 60nadii Somaliland hal jaamacadna kuma ool anu waxaan ka mid ahaa ardadii muxuu ahaayay dhowriye 80kii wax baratay ee dugsiyada sare ka baxday 83 84 baan ka baxay warwarka ugu weyn markaanu secondary ka baxayna wuxuu ahaa halka jaamacad ka heli iyo halka tagi doonta in yar oo da'yar dhalinyara oo duruuf adag haysato ayaa waxa uu tagi jiray jaamacad Muqdisho ku taal dhulka ma yaqaano dadkana ma yaqaano masaafadu way dheer tahay waxa ka daran afka wax ku baranayo afka wax ku soo bartay maaha jaamacad af Talyaani lagu bilaabayo ayuu tagi jiray waxa yaalay oo kala qalalaasa siyaasadeed badalka yaalay political crisis badalka jiray marka niyadba muu hayn ardaygu inuu buug iyo qalin sii wado mustaqbalkiisana wuxuu arkay inuu iska madooba waa naga sii nasiib badantiin arday waliba maanta gurigiisa iyo xatabadiisa baa jaamacadu ku taala magaaladii qoyskoodu yaalay ayuu ka helayaa jaamacad hadduu dheeraadana magaalo kaloon ka fogeyn ardayga ugu fogo waa kal ceergaabo jooga ama laascaanood jooga ama boorama jooga hadduu dhinac kale u baxo waa meel ku noolaan karo oo dhow oo reerkooda ka soo gaari karo xataa ma jimcayaasha la gaari karo iyo khamiisaha fursad fiican baynu haysanaa waxaynu u baahannahay jaamacadaheena inaynu tayeyno waxyaalaha xukuumadda muxuu ahaayey u taala cusub gaar ahaan annaga barnaamijka noogu jirta xisbiga kulmiye waxaa ka mid ah in dib loo eego jaamacadaha faraha badan la tayeeyo muxuu ahaa aqoontooda kor loo qaado dib u qiimeyn lagu sameeyo muxuu ahaa 22 jaamacadood inaga badan inaynu qaybaha inaga dhiman ku kordhino saxaafaddu ka mid tahay la xusayay faculties-kan technical-ka ay ku jiraan waxaan ku soo waranayaa dhammaantiinba waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idiin bogaadinaynaa sidaa iyo ambabax wanaagsan iyo kala boqol waxaanu dhiirigelinaynaa isdhexgalka dhalinyarada iyo jaamacadaha kulleyba barnaamijyo waxaanu ka fikri doonaa muxuu ahaayey kale oo iyaguna noocyadan oo kale aad iyo aad baa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu afur wanaagsan